asalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada channelka. waxaan rabaa inaan idinku soo dhaweeyo channelkeena. haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ta hanaga ilaawin, thumbs up, like and share insha allah. haddii aad tahay walaalaha nagu xiran waxaan ku leeyahay waa mahadsantahay soo noqodkaaga. maanta videoga wuxuu ku bilaabanaya anagoo dhex marayna London. waxaan raacaynaa doon, waxaan soo arkaynaa meelaha London ugu qurxoon insha allah. adinkoo ila daawanayo waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysatiin saddex waxyaabood oo raba inaan idinkaga sheego adiga iyo caruurtaada sidee iskugu soo dhawaan kartiin oo aad u badbaadin kartaa. marka social media wax badan waa laga hadlay in dhaqanka Soomaalida inay tahay in wax laga bedelo dhaqanka Soomaaliyeed. waxyaabo waxaa jira maaragtay markii aad degan tahay qurbaha aanan iskeenaynin dhaqankii iyo bay'ada lagu nool yahay. marka ilmahaaga waxyaabaha la rabo inaad ku soo jiidato oo ku soo dhawaysataa waxay tahay hadallada wanaagsan iyo routine-ka fiican iyo maskaxiyan caruurta in loo koriyo. marka maanta waxaan ku barayaa ama aan idiin soo bandhigayaa waxyaabo scientifically ah. waxaan ka wadaa waxyaabo article la sameeyay oo dhaqtarre oo cilmi leh ay soo qoreen insha Allah rabo inaan idinla wadaago. waxaan rajeynayaa hadda aad sameeyid gurigaaga adiga aad ku dhaqantid sidaan inaad isbedel arki doonto insha Allah. markaana comment-ka nagula soo wadaag biidnillah. walaalo badan oo social media way ka hadleen sida caafimaad fiican. hadda waxaan rabaa marka inaan kuu gudagalo waxyaabaha saddexda maalin oo soo socota aan rabo inaad samaysid insha Allah. horta ma ogtahay waalid inaad tahay inay tahay shaqooyinka shaqada ugu adag oo adigana la fiirinayo qaabka u dhaqmaysid, ilmahaagana oo la fiirinayo qaabka u dhaqmayo, interactionkaas iyo mataqaana connectionkaas inuu yahay qofka bilaabay adiga, because ilmahaas adiga kugu daysanayo, adiga ilmahaas role model u tahay. marka inaad haysatid patience badan iyo inaad haysatid dulqaad badan waayo wax la rabo inaan muujino insha Allah si ay noogu daysadaan iyagana u noqdaan dad horumarsan oo maskaxiyan aan ka dhisn insha Allah. marka waxaa loo baahan yahay inaad sameeyid saddexda maalin oo soo socota experimentkan. saddexda maalin oo soo socota sidaan sameey bal isfiiri waxa ka iska bedela kadibna meelihii wax ka qaldameen wax ka sax insha Allah. maalinta koowaad waxaa loo baahan yahay inaad naftaada horta adiga emotionally-gaaga adiga inaad isfiirisid maxay tahay aniga wax iga qaldan oo raba inaan saxo. marka waxaa loo baahan inaad ogaatid aniga maxay tahay gurigayga wax aan raba inaan ka saxo. ma hooyo qaylo badanaa tahay, ma hooyo oo mataqaana ilmaha dishaa tahay, ma hooyo ilmaha caysaa tahay, wax aad tahay bal is ogaaw. kow adiga is ogaaw best. adiga markaa is ogaatid waxa aad tahay baad ogaan kartaa waxa aad bedelaysid soo maaha. marka fiiri markaa rabtid qof kale inaad wax u sheegtid oo dhiirigelisid qofka kale sida wax ugu sheegaysid oo u dhiirigelinaysid oo kale naftaadana u dhiirigeli. maalinta labaad markii la gaaro oo aad og tahay waxa aad rabtid inaad iska bedeshid, maalinta labaad markii la gaaro waxaad isku dayaysaa oo aad isku tixgelinaysaa oo aad samaynaysaa inaad ka dhabaysid wixii aad tiri waa samaynayaa. ilmahaaga connectiona la samaynaysaa. marka asiga inuu ku yimaado looma baahna, inaad sugtid inuu qalad dhac looma baahna. waxaa loo baahan yahay adiga energy-gaaga iyo mataqaana fikirkaaga oo dhan inuu positive ahaado marka ilmahaaga la hadlaysid. adiga marka waxaa isku daydaa ilmahaaga inaadan wax badan aadan ka haysanin, expectation badan aadan ka haysanin. marka waxaa laga wadaa ilmahaaga maaragtay haddii ay da'dii jiraan ay ku xiran tahay, laakiin waxaa ka wadaa in generalba ilmaha in maaragtay culays badan la saaro ma fiicno. waxaa fiican intii ay karaankooda tahay inaad kula dhaqantid. wax badan oo kale ka fiicanna way imaan doonaan, laakiin maanta waxaa ku fikirtaa intii karaankeena aan samaynaynaa. perfect in la ahaado maanta oo dhan looma baahna. marka hadda example aan rabaa inaan ku siiyo. subaxii oo kale markii la soo kaco ilmaha markay soo kacaan ku bilaaw hab inaad siisid. habtaas aad siinaysid connectionka koowaada meeshaas oo ka bilaabanaya. markii aad aragtid inay quraacdooda si fiican u cunayaan dhiirigelin fiican oo positive ah sii. maasha Allah edaba u fadhidiin, maasha Allah cuntadiina si fiican u cunuusiin, maasha Allah kuwad positive ha kuu bato. iskuulka markaa geenaydid waxaad tiraahdaa Allah ma sugi karo inaan haddana hadhowtiis aragno insha Allah. ilaahay isu kaay nabad keeno ayagoo faraxsan iyo ayagoo qoslaya ha kaa tagaano. habeenkii markaa isku imaatiin ama markii duhurkii aad isku imaatiinna waxaa isku daydaa markaad isla cuntaynaysiin inaad telefoonkaaga aad meel dhigtid oo iyaga aad waqti gelisid oodan TV iyo waxna aadan u daarin. waxaa kaloo samaynaysaa inaad kala hadashid maalintoodii sidee tihiin, maxaa maanta la soo kulanteen, adiga maxaa dareensaneed maanta, wax hebel maxuu sameeyey, waxyaabahaasoo kale inaa energy-gaaga aad gelisid iyaga. kadibna waxaa arki doontaa inaa maaragtay isbedelka adiga aad samaynayid iyagana way isbedelayaan. ilmahaaga haddii ku dhibi lahaa xitaa kuma dhibaayo, wuxuu leeyahay hooyo maanta si fiican ay la dhaqantay, isagii fahmaya marka positive-ka kula dhaqmayday asinuu kuu soo celinaya insha Allah. waxaa xitaa sometimes waxaa dhici karta ilmaha qaar inayna kusii maaragtay inuu ku fahmin camal. marka mar walba waxaa soo xasuusisaa waxyaabihii ay markii maalmihii kale ay sameeyeen oo kale. like waxaa leedahay hadda kahor ma xasuustaa maalin hebel markaa meel hebel tagnay
saana sameeyay aada u fiicneed maalintaas si fiican ay dhigaysanaysay aadan ugu faraxsanahay waan jeclahay marka walaalaha si fiican ula dhaqmaysid mogtahay waxyaabo sidaas oo kale ah soo xasuusi wax hore hadda ka hor sameeyay si uu maanta connectionkiina u sii fiicnaado insha Allah maalinta saddexaad marka waxaa sameynaysaa qaladaad kasta ood aragto qaladka ma sheegaysid qalad kastood aragto qaybta saxanaad ka sheegaysaa ama qaybta uu cunugaaga sida saxda uga qaadan karaa u sheegaysaa marka waxaa la yidhahdaa qaybtan connect before you correct connection la sameey ilmahaaga intii ilmahaaga aadan sixin bal isku soo dhawaasho muuji marka fiiriyaan lacala ilmaha mid kamid ah mid riixaya marka waxaad leedahay waan u jeedaa inaad rabtid walaasha ama walaalka inuu kaa leexdo marka intii aadan adiga riixin waxaa ku tiraahdaa walaalay iga leexo sidaas oo kale marka waxaan rajaynayaa saddexdaas maalin markay kuu dhammaato inaad ogaatid meelahii ay wax kaa qaldanayeen iyo qaababka aad u saxday iyo qaabka aad hadda kadibna aad sidaas usii hayn doonto insha Allah soo marka koowaad maalinta koowaad waxaa laga rabaa horta inaad ogaatid maxay tahay waxaan rabaa inaan iska saxo aniga maxaan rabaa inaan iska bedelo ilmahayga aan rabaa inaan u noqdo marka taas ogaatid maalinta xigta wixii aad tiri waa sameynaya waa inaad ka dhabaydaa adigoonan maaragta sugaynin inay qalad dhacdo adiga le bilow positive-ka adiga le bilow emotional ilmaha inaad connected la noqotid adiga le bilow inaad ilmaha si fiican ula hadashid adiga le bilow haddii ay qalad dhaco inaad wixii sax aad ku sameeyid intaanan la qaylinin intaanan la oynin intaanan la buuqin haddii aragtid inay kugu adag tahana neeftaada qaado shaydaanka iska naar istaag ilmaha waa ilmo waa loogu talagala maaragtay inay maaragtay challenging yihiin mararka qaar ay xoogaa iska buuqaan waa loogu talagalay energy badan ilaahay sii maasha Allah marka adiga culays badan haba is saarin waqtigaas la jooga haddii aadan xamili karin xitaa bal naftaada waqti sii marka xamili karto u soo noqo behavior ka fiicanna samee adiga waa inay kaa arkaan wanaaga haddii adiga wanaaga kaa arkin iyaga markaas waxay caado u noqonaysa waxa aad hadda rabtid adiga inaad iska bedelashid adiga hadhowta caadi u noqonaysaa bulshadii la dhex tagayaan noloshooda dambe maaragtay dadkii ay saas kula dhaqmi doonaan shaqooyinkay bilaabi doonaan iskuuladii wax ka baran doonaan marka shaqsigooday ka mid noqonaysaa waxyaabaha aanan wanaagsanayn marka waxyaabaha aadan rabin ilmahaaga inayna ku dhaqmin hadhowti iyo marka maaragtay weynaadaan adiga hadda yayna kaa arkin adiga sida saxda u bar insha Allah waxaan rajaynaa inaad ka faa'iidaysteen videogan walaalo kale la sii sheer gareeya biidnillah waa inoo mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh